محمد حسن نجي حقيا حير كعيارها في السوماليلان وليس جارسيني مقبهية عالمية بدع 24 تي في أي waxa uu baaqna badal duray beelaha walaalaha shaqaqadu ku kala dhexmartay deegaanka Ceelafweyn isagoo ku dardaaray inay si degdeg ah baaqoogaasi u aqbalaan waxana hadaladiisii kamid ahaa xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliland waxaan maanta aan runtii halkan baaq uga dirayaa baaq nabadeed beelaha isku haysta ama isku laayay ama isku dilaya Ceelafweyn oo runtii aan leeyahay maaha qof in la islaayaa wax horumar ma keenayso laakiinse waxa horumar ah in nafaha inta hadhay la badbaadiyo oo maaragtay jiilka dambe sida ay colaadahan waxaan ugu badbaadi lahayn laga taliyo runtii diinteena islaamku dilka way naga mamnuucday in badan baa dhaar ku soo noqnoqoto dadka la dhaariyo maxaa hadan taas oo jeerba odayaal iyo dad karaamo leh dhaaranayeen waxa weeyaan sharafta ilaahay in siin inaan iska qaadna maaha dhaartuna wax yar oo fudud maaha waxaan leeyahay runtii anagoo dhalinyartii reer Soomaaliland waxaanu jeclaan lahayn baalkaas ku haystaan inaan soo degno anagu hadaa runtii si aan runtii u kala badbaadino dadka halka isku leenayo waa dad runtii ummad islaam ah maanta bil Ramadaan baa in runtii fooday nagu soo haysa bisha Ramadaan ilaahay inaynu u toobad keenno oo intii dhimatana ilaahay ha u naxariisto inta nolol la badbaadiyo taas oo ajarku noogu jira bisha Ramadaan inuu cibaadaysano ummaduna ay walaal noqoto wax la isku hayaana meesha ma jiro waxa weeyaan dadku waxana isku hayaan la isku leenayo waa wax maanta laga tagay inna uu ma harayo waxa uu walba u dhimanayaa halkaad maanta qofku ku dilaysid beertoole waad ka dhimanaysaa waad ka tagaysaa waxa loo baahan yahay adduunyada inaad ka tagtid adigoo wanaagsan oo muxsina si aad runtii jannada ilaahay iyo magaranaysaa aad u hesho waxaan markaa oran lahaa inta hadhay maanta ha loo taliyo khayrkana ha laga wada shaqeeyo reer Soomaaliland arrinkaasi way ka wada xun meel kasta ay joogaan dal iyo dibadaba waxaan leenahay markaasi arrinka ha laga noqdo waxa weeyaan qarannimadeena iyo jiritaankeena iyo dawladnimadeena iyo sharafta ilaahay nisiina han wada ilaashano laha markaasi dadkaasi nabadda la soo dabaalo ama aweerta dawladana hal la fuliyo taana waxa ka weyn amarka ilaahay ee mamnuucaya aayadaha quraanka ee mamnuucaya naftu in naf la dilo ayr la dilo in la fuliyo ayaa ka horeysa wax walba runtii waxaan rajaynayaa inaad baaqeega naga aqbali doontaan waxaan runtii cid idin timaaday ergadaydu ku timaadana adeeca بإذن الله كريم وحن درجنا إنه نقطان dadka maqla runtii dadku haday dadka maqla waayeen balaayooyin baa ku habsaday hadda yar baynu abaara ka baxnay abaarahana waxa weeyaan in ilaahay uu ku soo celiyo waxba maaha marka waxa weeyaan maradka ay khayrka inoo day maanta shalay abaar bay ahayd markuu roob yar saawday inaad qabsataan ma inaad alxamdulillah tirahdaan bay ahayd xilliga dhibaatadu jirtay xilliga barwaaqadu jirtay in ilaahay lagu mahadnaqo weeyaan waxaan runtii ku dhiirigelinayaa in dadka Soomaaliland ay ka qayb qaataan sida arrinka loo joojin lahaa kalaam Maxamed Xasan xogayaa xiriirka ciyaaraha fudud Soomaaliland waxa uu dawladda ugu baaqay inay si degdeg ah shaqadaasi wax uga qabato waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya anigu runtii dawladda waxaan runtii ugu baaqi lahaa in ay runtii labadan beelood in badan bay soo hor joogeen in badanna runtii waxa weeyaan labada reerna ma wada gardana cid un baa gardaranaysan isleeyaano marka waxaan leeyahay cid gardaran dawladdu state-ku waxa weeyaan talaabo waafaqsan ka qaadaan anu runtii waxa soo jeedin lahaa in labada beelood hubka laga ururiyo oo meesha dawladdu timaado dawladdu ay runtii hadii cid kale iska ilaalinayaan oo cid kale jeerin dawladdu inay ka ilaaliso oo dawladdu u ballan qaada amnigooda iyo xasiloodintooda iyagana hubka laga ururiyo maadaama aan dawladnahay Soomaaliland waxaan markaa oran lahaa dawladdu runtii ku dadaasho sidii dadkaasi runtii ay u dhaxgali lahayd cidda ballanka mar walba fulinaysa talaabo sharciga waafaqsan in laga qaada waxa weeyaan waa lama huraan hadii qofku talaabo laga qaadi waayo waxa weeyaan qofka gardaran waxa weeyaan qadarada ilaahayna ma jecla waxa dawladdu inay jeclaato ma waxaan soo dhaweynaynaa transparency cadaaladda aan soo dhaweynaa waxa maalmahan baysa soo tarayay baaqa nabadeed oo loo dirayo beelaha walaalaha shaqaqadu ku kala gaadhay deegaanka Ceelafweyn waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Nabaal iyo waliba Maxamed Amiin Axmed abi muqbahiye caalamiga badda 24 TV magaalada Hargeysa